bangigana waxaanu idiin cadaynaynaa dadka ganacsatada oo lacagtooda soo dhigtay lacagtooda ayagaa iska leh dawladdu ma laha cid kale ma laha sababtay u bixiyeen markii la gaaro lacagtooda ayagaa iska leh canshuur bay ku bixin karaan kaash bay u qaadan karaan bangigay u deysan karaan taas inay caddahay waa muhiim runtii annagoo ka jawaabayna dalabkii guddiga shirkadda korontada magaalada Badhan oo loo yaqaano Badhan Electricity Company BEC waxaanu ka ajiibnay codsigii iyo tala soo jeedintii shirkaddu ay samaysay si suuqa loo dejiyo sicirka lacagaha annagana waxay ka mid tahay core values-ka waxa ka mid ah in bulshada responsibility naga saaran tahay oo wax kasta oo la soo mataqaana kulma tamartu inta doonto waxa la kaatay in dawladda la istaago annagoo ka jawaabayna dalabkii guddidu uu soo qoondeeyay ee bangiga amal u soo qoondeeyay ka jawaabayna ayaanu keenay lacagta waana shubnay taasoo aan isleenahay waxay ka qayb qaadanaysaa biidnillahi tacaala baahida iyo duruufaha jira in la xakameeyo sarifka waxaan u soo jeedinayaa guud ahaan ganacsatada Puntland in iyaguna darafkooda ay ka qayb qaataan sarifka waa maalin leh waxa jaangoynaya bangiga wasaaradda maaliyaddu waxay ka sugaysaa jaangoyn maaha waxa weeye maalinta intuu marayo waxa soo sheegaya bangiga ayaa soo sheegaya maanta inuu qiimeeyahay baa dhici karta birina inuu mid yahay baa dhici karta saadamina inuu mid yahay baa dhici karta marka go'aanadii la qaatay maadaama ay qayb ka ahayd shirkadaha waaweyn waddanka inay lacag ay soo xareeyaan maantana ay bilaabatay labada shirkado oo horeeyay inay imaadaan kuwa kaleetana inay ku daydaan oo ay markana soo raacaan taas marka waxa ku xigi doonta suuqa isbedel degdeg inuu ku yimaado lacagta Soomaaliya qiimo yeelato waxaan ku haynaa suuqa monitoring waxa loo yaqaano korjoogtayn waxaan ognahay meelaha qaarkood dadku inaan war ku gaarin si la rabo u gaarin oo damabaadiyay jireen ama dadka qaarkiis waa iska dhaliilsadaaba waxba ma ogaadaan qoraalkaas sharax sheegay meelba waa yaala bangiyadu yaala wuxuu yaala rugta ganacsiga wuxuu yaala wasaaradda maaliyadda laamaheeda haddana haddii loo baahdo munishibeeyinku waa la geenayaa iyo gobollada waa la geenayaa inay akhriyaan mar hadday akhriyaan sidii ku qoray wax loo fulinaya wax ka bedelay marna ma jiraan sidaasaa lagu wada ganacsan yahay lagu wada duceeyey ummadii ku kala nafistay sidaasaa lagu shaqaynayaa annaguna saasaan ku horjoogtaynayna